وصباح وناكسن دمانا waxaan rabnaa maanta halkan inaan ku soo jeedino imtixaankii shahaadiga ahaa ee qaran ee Puntland kaasoo aan rabno inaanu tafaasiil ka bixino iyo qaabka u dhici doono sida wareegtada ku soo baxday wasiirka xafiiska soo baxday ee ahayd 27 bisha June 2020 in imtixaanku dhici doono haddii ilaahay mo imtixaankaas waxa uu ka dhici doonaa 132 xarumood oo ku yaala deegaanada Puntland iyadoo markaa sanadkan loogu talagalay kala fogeynta iyo muxuu ahaa kala dheeraynta ardayda oo tirada ardayda iyo galaasyada iyo xarumaha la yareeyay sababta keentana ay tahay iyadoo laga ilaalinayo badqabka caafimaad ardaydeena reer Puntland sida darteed waxa isbedel ku yimi inaan kordhinay xarumihii muxuu ahaa lagu galay imtixaanka oo la gaarsiiyay 132 xarumood halka markii hore la filayay inay noqdaan 110 xarumood meelaha sidaas awgeed waxaan u sheegaynaa in cid walba ay u diyaar garowdo haddii ilaahidmo iyadoo aan rabno insha Allah inaan ku wacyigelino ardayda badqabkooda caafimaad haddii uu jiro arday xanuunsan tixgelintiisa muxuu ahaa in uu joogo gurigiisa joogo ayaanu rajaynaynaa warbixin nala ka soo siiyo ardaygaas xanuunsan si aysan badqabka caafimaad inta kale loo ilaaliyo ardayda imtixaanka sanadkan galaysa waa 16500 arday oo dhammaan gobolada Puntland ay 9 gobol ah tirada wiilasha imtixaanka galaya sanadkan waa 9483 halka gabdhaha imtixaanka galaya ay yihiin 7012 halkaas waxaad ka arki kartaan in tirada gabdhuhu ay kor u soo kacday taasna waxay tusinaysaa tayada waxbarashada Puntland kororeysta waxbarashada gabdhaha ee la geliyay waqtiga la geliyay dheeraadka ah in isu soo dhow yihiin inay soo gaaraan ardaydii marka loo eego sanadadii la soo dhaafay farqiga u dhaxeeyay wuxuu ahaa 40% bay ahaayeen gabdhuhu wiilasha ahaa maanta farqigu wuxuu marayaa wax u dhaxeeya 10% 20 15 20 wax u dhaxeeya baa wiilal ah 7 ardayna waa gabdho way waad garan ka marka farqiga u dhaxeeya hadii dhaafay oo soo yaraaday tirada macallimiinta ka qayb qaadanaya sanadkan iyadana kor bay u kacday waa macallin oo primary-ganu 600 ay ka qayb qaadanayaan secondary-gana 300 macallin ka qayb qaadanayaan sababta loo kordhiyay waxa weeye xarumiyo tirada ka batay loo kordhiyay iyadoo la ilaalinayo badqabka caafimaad ee ardaydeena reer Puntland halwadeennada kale ee imtixaanka maamulaya waa 165 oo isugu jira kormeerayaal sare kormeerayaal dhexe kormeerayaal center isugu jira halwadeennada xafiiska imtixaanaadka qaadanaya waxa weeye iyadoo kala sanad ka qayb qaadanaya ilaa iyo 450 booliis ayaa ka qayb qaadan doona imtixaankeena oo waxay ka noqon doonaan xarumaha iyaguna ogaan doona sida u shaqeynayaan iyo hawlaha loo shaqeynayo 27 bisha June weeye waqtiga imtixaanka la qaadayo waxaan rabnaa arday walba inuu ogaado dhammaan kaararka imtixaanka ID kaarka imtixaanka waxa la geeyay xarumaha degmooyinka iyo gobolada la geeyay waxaan rajeynayaa dhammaan ardayda reer Puntland oo dhan ugu dambeyn 10 bisha waxa la soo jeegareyn doonaa xarumihii waxa la rabaa arday walba inuu ku sugnaado 20 bisha waa inuu joogaa xaruntii imtixaanka laga qaaday oo magaalada imtixaanka uu ku gali lahaa uuna ogaa imtixaanka uu ku galayo inuu ardaygu joogo isagoo haysta ID kaarkiisa hadii la haydmo waxaan rabnaa macallimiinta iyagana waa sidii caadada ahayd waxa loo sheegi doonaa xarumaha ay tagayaan imtixaanka ugu dambeyn 20 bisha iyagana waxa la rabaa hadii la haydmo inay ku sugnaadaan xaruntooda si ay u diyaar garoobaan imtixaanka hadii la haydmo waxaan rabnaa waalidiinta muxuu ahaa reer Puntland ardayda imtixaanka galisa dhashay waxaan rabnaa iyagana inay ayaamaha imtixaanka uu soo socdo ama imtixaanka la gali doono inay la socdaan ardayga caafimaadkiisa xaaladiisa badqabkiisa muxuu ahaa wax akhriskiisa inta la la socdo insha Allah waxaan rajeynaynaa sanadkan guul wacan baan rajeynaynaa waan soo lafa adeegnay waan soo dhibirnayeen waan soo bixin waqti badan ma ku soo bixinay casharo badan oo ina dhaafay e-learning-ka lagu bartay oo barnaamijka e-learning waa soo gabagaboobay waxaan rajeynayaa revision oo ku filan yahay waalidin siiyay hadii ilaahay ma waxaan rajeynayaa imtixaankuna insha Allah inuu noqon doono imtixaan muxuu ahaa sidii caadada inuu ahayd lagu qiimeynayo ardayga si uu uga gudbo marxaladan oo marxalad kale uu gudbo hadii ilaahay waxaan dhammaantiin idin rajeynayaa in aad imtixaankaas si badqabla aad hus gaadhaan oo aad ka qayb qaadataan si aad u gudataan waajibaadkiinii muxuu ahaa ku soo gabagabeyseen sanad dugsiyeedkii ugu dambeeyay ee 2019 hadii la haydmo waxaan rabaa dhammaan bulshada reer Puntland sida caadada ahayd inay nagala shaqeeyaan mas'uuliyiinta kala duwan muxuu ahaa waalidiinta dadweynaha meediyaha hawshan qaran ee aan qaban doono hadii la haydmo iyadoo aanu ilaalinayno ay ka duwan tahay sidii horeeto badqabka caafimaadka oo la ilaalin doono xaaladaha meelaha caafimaadka aanu geyn doono agab caafimaad insha Allah waxaan rajeynaynaa
wasaaradda caafimaadkana aanu wada hadal hadda noo socdo aanu ka rajeynayno insha Allah iyadoo sanadkan si toos ah ay wada qayb qaadan doonto imtixaanka maadaama uu sanadada hore ka duwan yahay hadii ilaahaymo waxaan rajeynaynaa markaas anagoo iskaashanayna wasaaradahayga waxbarashada iyo caafimaadka sanadkan insha Allah inaan kaga gudbi doono si khayr hadii ilaahaymo meediyaha sidoo kale waxaan rabnaa inaad wacyigelinta sii wadaan ardayda inay ka faa'iideystaan waqtiga inay casharadooda sii akhristaan inay maaragtay baalkayaan imtixaanka waxa inoo ka haray waqti yar oo kooban waxaan rajeynaynaa dhammaantiin inaad ka wada faa'iideysataan wacyigelintan ugu dambaysa waxaan siinayaa ardayda inay kaararka imtixaanka ay ka qaadan doonaan xarumahoodii imtixaanka ay ku galayeen ee degmooyinka iyo magaalooyinka waaweyn ah waxaan rajeynayaa arday walba ay 10 bisha inuu kaarkiisii imtixaanka uu ku galayay uu qaato si markaas uu uga mid noqdo ardayga imtixaanka loo ogolaan doono imtixaanka geli doona maan waxaan leeyahay guul ardayda reer Puntland waxaan leeyahay khayr badan rajeynayaa insha Allah waxaan rajeynaynaa mixnad kasto inuu ku timaado waxaan ugu gudbinaa aqli iyo maarayn iyo inuu ilaahay la kaashanayna alxamdulillaah rabbil caalamiin haddana waa la soo kaashanay inta hadan ilaahay baan la kaashanayna waxaan rajeynaynaa markaas maanta inaan ugu wada gudubno si guul ugu wada gudubno oo imtixaankeenu isaas inuu ku dhamaado inuu ku fududaado ilaahay waxaan idinka baryayaa imtixaankaas inuu guul idinka gaarsiiyo anana insha Allah waxaan rajeynaynaa idin dadaal adag idin muujino waqtiga adag ee lagu jiro hadii ilaahay